السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الرئيس السوماليانية ومد إسلام كيبوا إذن السلام يا ملك استوى شوك تنبا أن وحسود ودور الشدي السوماليلان أو معلني كهدي قول إيا قبنيم إيان أورتشين يا ومد الرئيس السوماليلان ملك استوى شوك تنبا وحان الله كبر يا إنه isbedel khayr qaba ka dhaco Somaliland inay Somaliland ka baxdo 7 sanadood oo qabyaalad iyo isku dir iyo kala fogeyn iyo xumayn inay ka baxdo 7 sanadood oo wax tardara waa ta arkayseen madaxweynihii wuu hadlay hal wax oo uu sheegtay ويري waxaasaan qabtayna ma jirin maxaan hanjabaad iyo waan aargoosanaya iyo dad baan soo xidhxidhaya aan ahayn waxaan rajaynaynaa inay Somaliland aargoosashada ka badbaado haddii aad kulmiyo doorataan oon anba taageeri jiray waqti waxaad dooranaysaan 7 sano oo dambe haddiiba ay jirto Somaliland oo rafaada oo dhaqaale xumo oo isku dir iyo colaad joogto waxaad dooranaysaan colaada bariga oo halkeedii ka sii socota sababtu tahay si kulmiya ayaa u arka xalka iyo jiritaankiisa in colaada barigu ay sii socoto weligeed waxaad dooranaysaan 7 sanadood ay Somaliland bariga Somaliland xabadu ka socoto waxbarasho la'aantu halkee maxaan ku raahday saamayso qoqobnaanta maanta ay ku jiraan ee aanay dalkaba moodo inaanay ka mid ahayn ay halkeeda ka sii socoto waa haddii aad kulmiyo u codayso kulmiya waxa ku urursan oo isugu tagay ummad aad moodo macnihii halkii la saraabayna xumaan tahay halkii la saraabayna colaad tahay halkii la saraabayna kala fogeyn tahay halkii la saraabayna qabyaalad tahay madaxweynaha wadanka xukuma dadka ugu sokeeya ee taageeraya waxay sheegeen oo ugu haddii aan soo qaato qof kamid inanta Faadimo Siciid la yiraahdo waxay tiri maalin la wareysanayay madaxweynuhu cid kale ma dhageysto taladiisa oo kaliya ayuu ku socdaa reer kulmiye in la wada tashado in la wada hadlo in umadu tashato waxay u yaqaanaan xumaan iyo jilicsanaan iyo ceeb caalamkana ma jirto qof bila aadan oo xitaa 100 qof ha u ahaada maxaan ku raahday hogaamiye oo aan dadka la tashanin ma guuleysan karo la tashid la'aanta iska weynaysiinta keligii wax ismoodku waa ta Somaliland halkay maanta joogto dhigtay waa dictatornimada iyo anaa keligay wax aqaan aadamahana ma jirto qof keligii wax yaqaan adna waxba taqaan anna waxbaan aqaan umadu waxay ku horumartay oo meel ku gaadhay waa maskaxaha la isu geeyay ee maaha maskax qof kaliya ku jirta Muuse Biixi waxay taageerayaashiisu cadeeyeen dadka ku dhawi cadeeyeen in uu yahay qof keligii taliya oo umada inta kalena keligii dhageysato keligii dhageysadkina waa ta halka maanta aynu joogno ee dhaqaale burburka ee maxaan ku raayay xuduudaheeni dib uga soo baxnay waa ta keentay weey dagaalkii ka dhacay bariga laba siyoodba waa looga maxaan ku raahday waa looga badbaadi karay waa kow in ciidamadii soo galayay iyo raggii soo galayay la joojiyo waa lagaga badbaadi karay midna waa lagaga badbaadi karayo taladii Muuse la siiyay hadduu qaadan lahaa ee ahayd ciidanka dib uga soo saarintay goor ahayd hadduu ka soo saari lahaa tamaanta dhacday waa laga badbaadi lahaa laakiin tala qof kaliya iyo madax qof kaliya ayuu dalku ku socday tiibaana keentay jabka maalmaha dhacay dhaqaale burburka iyo gaajada maanta Somaliland joogtana waxa keenay nin keligii talinaya oo madax qof kaliya oo qaranku ku socda
ayagaa sheegay reer kulmiye, ayagaa caddeeyey reer kulmiye, ayagaa yidhi madaxweynaha wuxuu ku socdaa taladiisoo kaliya, cid kale ma dhegaysato, cid kale ma dhegaysto. taa ka duwanaanshaheeda waxaa astaanta ka soo horjeeda ah in la tashado, in wax la isweydiiyo, in ummadda la dhegaysto. waatay ku caayaan maxaan ku dhahay cabdiraxmaan. waana ta uu ummad badan oon anigu ka mid ahayna ku soo jiitay. anigu waa la wada ogyahay kulmiyaan taageeri jiray, laakiin maxay tahay ra'yigaygu muxuu yahay? waxaan aaminsanay dal iyo dad wada tashada. waxaan aaminsanay qaran meel keliya laga maamulin, qaran galbeed ilaa bari dowladnimada u siman, dhaqaalaha u siman, maxaan ku dhahdaye waxbarashada u siman. laakiin waa la waayay. kulmiya wuxuu ku soo ururay xaafad. haddii aanad intaa u sacabtuminna waxaa tahay cadow. shalay anigu waxaan ahaa inan reer somalilan ah, inan mujaahidad ah, inan maxaan ku dhahday qarankeeda difaacda. laakiin maanta waxaan ahay cadowga gudaha, waxaan ahay habartii waalayda huwanta ahayd. ma fahantay? qof kasta oo kulmiye aragtidiisa qalloocan yidhaahdo joojiya waa cadowga gudaha. waatay maanta la qaylinayaan ee uu sheegay maanyarka magaalada Hargeysa, sharaf iyo karaamo korkiisa ha ahaato, qofkii ugu wax qabadka badnaa weeye. waatay maanta ku haystaan ay leeyihiin muxuu u yidhi cadowga gudaha. dee 7 sano aanu maqlayna cadowga gudaha. cadowga gudaha cidduu yahay ma cid ba shaki kaga jira? cadowga guduhu waa beel garxajis la yidhaa. ayuu u arkaa madaxweynaha iyo maxaan ku dhahday iyo waxaag joogaaba. dadkaasay cadowga gudaha u arkaan. reer bari cadowgay u arkaan. qolo diin bay waxay dhahdeen diin bay wada tahay inaan inagu shaqo ku lahayn, ma garanayo waxay tahay. dadkii ummadii reer somalilan waxa loo qaybiyey wax alla wixii aan kulmiye sacabka u tumin ee aan kulmiye sax iyo khaladba kula soconin, waxa weeyaan waa cadowga gudaha, waa cadowga dibadda, waa kuwo group diimeed, wax noocaas ah. markaas gruubada dadka loo qaybinayaana maxay keenayaan? waxay keenayaan nugayl, inaad darkaaga aanad awood u lahayn in la difaaco. lama difaaci karo. waata maanta sababtay inay reerihii ishubeeyaan. 4 iyo 3 iyo 30 sano kadib waxay qasab ku noqotay beelaha reer somalilan iyo dadka reer somalilan ee bariga dega inay ciidamo gaara samaystaan oo ay xuduudooda difaacaan. markii loo waayay ciidan difaaci, ciidankii difaacila maxanihii 27 sano iyadoo jirta buu muuse yimi. 27 sano somalilan dagaal baa ku socday, dagaal siyaasadeed baa ku socday, dagaal hubaysan baa ku socday. intaaba waa la iska difaacay. maxaa la iskaga difaacay? wada jirka ummadda la iskaga difaacay. kulmiyo wada jirka ummadda ayuu meesha ka saaray. anigu ma garanayo, dee waa madax keliya sida ay noo sheegaan reer kulmiye. madax keliya baa taliya. marka madaxii keliyaha wuxuu yidhi inta aniga igu waageersan ayaa qaranka difaaci karta. waa tafashilan keentay fashilka somalilan ku dhacay. marka waxaan rajaynayaa inay ummadda reer somalilan ay doortaan 7 sannadood oo waxqabada, walaalayna, isu keenina, ciidan somalilan oo dhisan, mushaharkiisa iyo baadroolkiisa iyo hubkiisaba wata, oo aan dad Hargeysa fadhiya ama qurbaha fadhiya wax alla waxay qaranka u qabtaa jirin inay 3 mushahar qaataan, ciidankina baadrool beero oo maxaan ku leeyahay mushahar beero oo hub beero. waxa weeyaan taas ayaa sii soconaysa. in mushaharkiina iyo maxaan ku leeyahay cashuurtiina dad Hargeysa iska fadhiya ay maxaan ku dhahday 3 mushahar qaataan, ciidankiina hub loo waayo oo baadrool loo waayo oo raashin loo waayo, oo arkaysa dunxumada iyo inamadii yaryaraa maxaan ku dhahay inay qoriga sare u qaadi karayn.
bariiska qalalan dagaalkii oo socda waxaan ila tusaya iyagoo bariis qalalan sidaa u cunaya oo cad waxaa maxaa keenay waxaa keenay xaqsoor la-aanta dad gaara iyo cid gaara oo aanan reer ahayn laakiin inta u sacabtunta kulmiye ah ayaa saddex mushahar qaata anuu reer ma haysto laakiin waxaan haystaa dadka ku ururay haysasho maahe waxaan runta ka sheegaynaa waxa kulmiye ku ururay kuwa garxajiis ee ka midka ah kulmiye ayaa ugu liita dadka kulmiye hogaamiye waa dadka u sheegay inaanu muuse bixi cid kaleba u baahnayn intaa yare asaga ku wareegsan mooyaane markaa 7 sannadood ama waxaad dooranaysaan inay somaliland burburto waayo muuse wuu burburin doonayo aargoosashada uu bilaabi doonay asagu afkiisa uu ka sheegay ee ah inuu ka aargoosanayo dadkii dadka kala badbaadiyey ayaa kow ka noqonaysa burburka somaliland markaa guul iyo gobonimo aan idiin rajaynayaa doorasho fiican baan idiin rajaynayaa laakiin xukunka maanta jooga ma aha mid somaliland maamuli kara ma aha mid ummadda reer somaliland isku wadi kara ma aha mid aqoonteeda haba yaraata leh waa dad laysu ururiyey oo nacab iyo colaad iyo balaayo uun la tusay oon wax kaleba indhahoodu arkin oo ummadii reer somaliland aan qabiilada qaar u arkin reer somaliland beesha galbeedka bariga somaliland degta ee daarood ee dhulbahante uma arkaan somaliland garxajis waa cadowga gudaha ee somaliland waxba yaan la diidin shalay yaan laga xumaan oo laga xanaaqin ereyga uu yiri ina mooge waa ka runta ee dhabta ee xaqiiqada ah ee kulmiye ummadda uu ku shubayay 7 sano u dambeysay guul iyo gobonimo idin rajaynaya reer somaliland khayr iyo barakayn iskoogna